Suldaan Maxamed oo ka mid ah salaadiinta gobolka Saaxil ayaa markii ugu horeysay ka hadlay hadalhaynta maalmihii u dambeysay sida weyn u dhex gashay shaashadaha iyo waliba baraha bulshada dadku ay ku xidhiidhaan waxaanu ka hadlay oo uu si dhiiran oo adag uga hadlay arinka takoorka ama xaqiraada bulshada qaarkeed lagu samaynayo waxaanu sheegay in arinkani aanu ka taagnayn Somaliland oo kaliya ay ka taagan yahay dhammaan shantii gobol ee Soomaalidu degi jirtay sida Djibouti NFD oo Kenya gacanta ugu jirta kiilka shanaad oo Ethiopia iyaduna dawlad gaar ah u magacowday Somaliland iyo dalkii la oran jiray Soomaaliya ama Somali Italy Suldaan Maxamed waxaanu ka codsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland in uu Google ballaaran fidiyo oo arrimahaasi si qoto dheer loogu la foguro bariyaha waxa jiray in xaqi soo baxayo oo ilaahay ka yeelsiiyay ummadii xaq darrada iyo dulmiga jira lagu hayo beelaha ku soo jeedno in ilaahay dadkii tusaayo waxa leeyahay dadka dulmiga lagu hayaa dulmigu laakiin Soomaaliland oo kaliya kuma qoobna ee meelaha Soomaaliga laga hadlo dhan ku jira dadka la haysooca amba dadka la cadaadiya ilaa NFD ilaa kiilka shanaad ilaa Djibouti uu daway joogaan baashayna Somaliland uu soo koobinay de baashayda balaariyo dad walba dadka joogay ka hadlaan mar hadduu meelaha Soomaaliga laga hadlo dhan ku jirana in dadaal dheer lagu wada qaado oo gobol walba amba dal walba dee uu kaalintu lahaa ka qaataa laga doonaya laakiin maadaama uu reer Somaliland aanu nahay waxa baaq leh aanu diraya madaxweynaha qiimaha badan ee sharafta laga mudan ee si fiican loo kala yaqaan ee noo abtirinaya waa Muuse Biixi Cabdi ilaahay daayo cimrigeena Allah siiyo waxa ka codsanaya adigoo Suldaan Maxamed madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu arrinta inta Somaliland uu soo gooligo arrinka uu isagu gobashiisa yeelo oo isugu yeelo reer Somaliland culmiye caamada oo talo midaysan arrinta laga gaaro ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ka codsanaya dabcan waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ka codsaday in uu isagu ka noqdo arinka mujtamaca lagu simayo waxaanu ka dalbaday in uu wasiir buuro ah siiyo dadkan ama beelahan uu ka soo jeedo in wasiir ku-xigeenka Mahdi Cismaan Buuri laga dhigo wasiir buuro ah ama wasiir buuxa oo wasaarad isagu gacanta maamulkeeda ku haya madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa oo si weyn kaaga codsanaynaa ilaa wasiir buuxa na siiso oo waliba Mahdi Cismaan Buuri oo nin balaarana oo hadii beedinkeeda leeyahay ummadda isku wada aad nooga dhigto oo Mahdi Cismaan Buuri wasiir buuxa nooga dhigto ayaa ka codsanaya anigoo Suldaan Maxamed Axmed dhanka kalena Suldaan Maxamed Axmed waxa uu sheegay oo uu cadeeyay in gobolka Saaxil ay ku qabaan xishmad iyo soo dhaweyn goobaha muhiimka ahna ay ka qayb galaan iyagoo sharaftooda wata waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqay maamulka gobolka iyo maamulka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin cabal weyn oo dad reer Berbera maamuus badan baa noqonaa qaad baa diidanada ka cabanayo dhalmo maamuuso waxa uu sheegay reer Berbera waa la maamuusa oo hadii xaflad noqoto hadii barnaamij noqoto inta baa Suldaan Maxamed ka qayb gala aad iyo aad loo ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka Saaxil sida cabal u shaqeeyo runtii horena waa ugu dooranayay maanta waa dooranayna insha Allah taala ma ku wada shaqeeyaa beelahan runtii ka caawinayna wallahi garan maayo anigu kuwa sida ku arkaan waa waqtidooda dawladtaas laakiin si anigu Suldaanimadii gobolka matalaya waxaan leeyahay anigu ma ka caawinayno waa soo dhaweynayna horena waa u dooranay in kala dooranay sidoo kale Suldaan Maxamed Axmed waxa uu sheegay xilligan adag ee xagaaga ah ee magaalada Berbera ay ku sugan tahay inuu arkay markii ugu horeysay oo biyo ku filan ay hesho magaalada Berbera waxa runtii ku diirsanaya ku farxaysan wakaaladii biyaha ee Berbera oo magaaladii biyihii meel biyaha ay soo dudurayaan oo wakaaladda lafteedina daba
aan cidina ka caawin ay wakaaladda oo keliya ay ku kooban tahay laga wado dabaq oo maasha allah leeyahay. وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاه بولشة تي في مقالة بربراء.